السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دhowaada casharkeeni tobnaad qaybtiisii koowaad taasoo aynu maanta kusoo qaadan doono constituentsku runtii waxa weeyaan qayb aad useful ah taasoo aynu korno waxa loo isticmaalaa in ay ku cayinto isla mar ahaantaana ku xadido dheeytada aad ku kaydinayso table-kaaga kana kooban 60 qaybood ee usefulka ah. Ugu horeysa waa notional, primary key, default, check, unique iyo foreign key. runtii mid waliba function gaar ah ayuu qabanayaa. waxaanu nimanka ka soo qaadan doonaa casharkeenan notional marka aad ku apply garayso column kamida table-kaaga uma ogolaan doonto user-ka in uu dhaafo isaga oo column-kaasi uu maran yahay ama wase aan wax value ah soo gelinin. waxaanu ku qasbi doonaa column-kani in user-ku uu soo geliyo value oo uu ogaado in column-kani yahay compulsory column isla mar ahaantaana aan la dhaafi karin. haddaba in ku soo qaadano tusaaleheenan halkan sidaad ku aragtaan waxa noogu diyaariyay table la yiraahdo UOH kana kooban columns-kan ID, first name, last name, gender, telephone, college, faculty, course iyo credit hours. haddaba table-kan ayaynu doonaynaa inaanu ku apply garayno exampleskeena bilmatalan imika primary key oo kale marka aynu doonayno in aynu ku apply garayno table noocan ah runtii kama yeelayo haddii aad sidan ku ran garayso kadib aad istiraahdo query ahaan ugu dar sababtoo ah halkan ayaa la doonayaa marka ugu horeysaba inaad ka sii dhigato notional. taasina si ayna carqalad inoogu noqonin casharkeena ayaynu ku qaadanaynaa inaanu halkan ku sii qorno notional oo aynu nidhaahno column-kan isagoo oo maran yaan haba yaraatee laga boodin. sidaad halkan ku aragtaan constituentska lama dhigo data type-ka xaggiisa hore ee data type-ka xaggiisa dambe ayaa lagu qoraa. sidaas ayaanu saxdi ku noqonayaa aynu isku gareyno query-geenan table-keeni sidaas ayuu inoogu samaysan yahay. aynu tagno database-keeni ahaa pro database kadib aynu sii doorano tables. halkan waxaa noogu soo biiray table-kii aynu imika samaynay ee UOH ahaa. haddaba si aynu data u gelino marar badan ayaynu soo dhiganay sida data loo geliyo in table query-ha waynu kusoo dhiganay manual-na waynu kusoo dhiganay. haddaba imika manual aynu ku gelaynaa datada si aynu wada aragno error-ka soo baxaya isla mar ahaantaana column-kan AD ah lama dhaafi doono isagoo oo maran. bal isla eegno halkan waxaad ku aragtaan ID, first name, macnihii waa columns-kii uu ka koobnaa table-keeni UOH ahaa. haddaba bal aynu ka boodno column-kan la yidhaahdo ID isla mar ahaantaana inta kale oo dhan aynu data gelino. kadib row-geena markaaynu sidaa data u gelino xasuusnow inaynu ka boodnay column-kii ID ahaa ee aanu ku apply garaynay. waa in aan laga boodin column-ka isagoo maran kadibna aan taabto si aynu ugu gudubno row-ga ku xiga. waxa uu ku soo saarayaa message-kan isagoo ku leh column-kan AD la yiraahdo lama ogola in isaga oo null ah laga boodo because wuxuu ku leeyahay does not allow nulls insert files. marka kama gudbi kartid weeyaan ilaa aad column-ka value soo geliso. kadibna okay waan leenahay waxaan leenahay ID-giisu waxa weeyaan 1 2 5 8 4 1 2. kadibna column-kan aan tagaya tab baan imika siinaya. imika waa u dhaafay sababta oo ah column-kii koobaad waxaynu soo gelinay. haddaba bal column-ka koobaad oo keliyaata aynu imika wax gelino dhammaan inta kalena aynu ka boodno inagoo tab isticmaalayna. wuu iska dhaafaya sababtoo ah iyagu constraint ma laha oo totals wax validation lagu sameeyay amaba saa aynu odhan karno error correction way oo macnihii khaladaad soo galay ay saxayaan ma jiraan amaba se column la yidhi isagoo maran yaan laga boodin oo compulsory laga dhigay ma jiro. sidaas
ayaan u shaqeeyaa not null. casharkeena gaaban halkan inoogu joogo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.